16 bishii August ee sanadka 2018 ayaa ahayd markii ay si wada jira u dhagax dhigeen maamulka Marso Organization maamulka dawladda hoose iyo ka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh malcaamad Quraan oo laga hirgeliyay deegaanka Raari oo hoos yimaada degmada Sheekh malcaamadan oo deegaankaasi baahi weyn u qabay isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dadka ku dhaqan deegaanka Raari munaasabadii dhagax dhigga malcaamadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka dawladda hoose oo horkacayay maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartan Xaaji Abakar maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh oo horkacayo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh Maxamed Ibrahim Xaaji Cabdullaahi mas'uuliyiin ka socotay ururka Marso Organization oo horkacayay gudoomiyaha ururkaasi Xamse xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan deegaankaasi Raari waxaana munaasabadaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo ka mid ahaayeen maayir ku-xigeenka degmada Sheekh gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada Sheekh gudoomiyaha ururka Marso Organization xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo uga mahad celiyay malcaamadan Quraan ay hirgelinayaan ururka Marso Organization waxaana ay sheegeen inay malcaamadani ahayd mid baahi weyn loo qabay oo isla markaana wax lagu bari doono dadka da'yarta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi runtii ururka Marso ee ururka mutadawca ah runtii wuxuu halkan maanta ka dhagax dhigaya malcaamada labada qol iyo labada suuli iyo barkada ka kooban oo ay soo bixiyeen muxuu ahaa muslimiin muxsiniina oo deegaanka u dhashay kharashkeeduna uu ku kacayo $6,000 fayskii koowaad aan bilaabayno insha Allah sida ugu dhaqsaha badanna muddo hal bil ah qaadanaysa runtii hadal badan ma oranayo oo mas'uuliyiin badan baan taagan ciidana way kulushahay bulshooyintuna in badan bay taagnaayeen sidoo kale waxa hadalka iska daba qaatay xildhibaanadii odayaashii iyo waxgaradkii deegaankaasi oo dhammaantoodba u mahadnaqay ururka Marso salaamaya dadweynaha reer Raari oo baahi aad u culus qabay waxa maanta aad noo farxad noo gelinaysa Raari oo runtii ugu daaweyn tuulooyinka degmada Sheekh qaybta galbeedka oo maanta waqtigii ugu fiicnaa uu soo maray insha Allah bismillaahi kariim waxa aan filayaa inay ka faa'iideysan doontaan waxaanaanu duco iyo hambalyo u diraynaa dadka ugu deeqay ee walaalahooda ah lacagta aan noo keenteen halkii aad ka soo saarteen Ilaahay khayr iyo xasanaad aad u culus haydinka waxa aan maanta ku gudoominaynaa oo ah naloo keenay malcaamad haddii alla yidhi malcaamadda dee waxaa weeye ilaahay hanugu anfaco wax intii wax ka dhiganaysa iyo inta kale joogtaba oo aad iyo aad aan ugu baahnayn beeshu ay ugu baahnayd ururka Marso ee soo bixiyey malcaamadda way mahadsan yihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaan leeyahay ilaahay khayr ha siiyo mahad iska leh inaan soo waafajiyey maanta kulankan muhiimka ah in isku nimaadno marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay ka sokow ilaahay baa marka koowaad mahad leh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa ururka Marso halkan maanta waxaan ka dhagax dhigaynaa macaamad ay u baahanay deegaanka Raari deegaankani waa deegaan ballaaran warkooda la warhaynaa haddii maanta deegaanka Raari uu macaamadaas soo buuxiyo waxaan ballan qaadaynaa annagu haddana wasaaradda waxbarashada inaan iskuulkan ka hirgelin doono haddii Ilaahay na gaarsiiyo يا مرسو جروب oo gudoomiyaheedii iyo gudoomiye ku-xigeenka bay nala joogaan Xamse iyo Maxamed waana maalmihii khayrka lahaa tobanka cashiin ku jirnaa ilaahay waxaan leeyahay ha ka sawaabiyo oo mahadnaqaynaa waa sida Maxamed sheegayna malool iyo suuqsada iyo Marsana waan isku xidhi doonaa insha Allah intaasoo group deegaankii bay ka koobanayso tardibto ay booliiska aanay kala bixin ya waan la qaanaa Raari ma lahayo
أنا والدي كمان نقينا غير هارين وحلا هالك مهرد كده علينا مهردي دي كلها هالك كسرنا muddo yaro kooban ayaa ka soo wareegtay markii xafladda loo qabtay dhagaxdhigga malcaamadani waxaa lagu dhammaystiray muddo yaro kooban waxaa xafladdii furitaanka malcaamadaasi ay ka dhacday deegaanka raari waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dowladda hoose ka wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin ka socotay ururka marso organisation xildhibaanada golaha deegaanka iyo mas-uuliyiinta iyo bulshaweynta ku dhaqan deegaankaasi xafladda furitaanka malcaamadani ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi oo isugu jira maamulka dowladda hoose warkacaya maayir ku-xigeenka degmada sheekh cabdi cartan xaaji abukar gudoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh maxamed ibraahim xaaji cabdilaahi xildhibaanada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi raari oo hoos yimaada degmada sheekh waxaana ka mid ahaa hadalladoodii wadalad runtii had iyo jeer baahiyaadka bulshada ay weliba qaybta waxbarashada iyo caafimaadka waxay ka tari karayso in badan qabata waqtiyadii hore waxay ka shaqayn jirtay ururku ka shaqayn jiray togdheer waxaanu hore intan oo kale uga soo dhisnay tuulada leedaha cali faarax waxaanu ku xigsiinay qurax kudle saaxil insha Allah service hoose waan qaban jirno sida macallimiin gurna laga bixiyo laakiin waa dhismii koobaad saaxil laga dhiso waxaana nasiib u yeelatay degmada raari taas waa taawati ururka insha Allah waxaan rajaynayaa meelaha kale ee saaxil iyo sheekh midaba inaanu wixii insha Allah aan ku qaban karno ka qaban doono qodobka kale aan doonayay inaan dadweynaha reer raari dhahdo waxa weeye waxa la yiri xabaaliye ninkii loo kala tag barnaamijkii ururka marsa ku xidhnaa ee dhismaha uu naga soo dhamaaday wanaga maanta ballanqaadkayga ahaa inaan labada qol ee nimada iyo hablaha idin dhisno caruurtii malcaamadda lagu baro ee malcaamadda ugu tala galay aanu ka soo kafaala qaadnay qoliyaha qurba joogta ee barnaamijkaas oo isku soo dibariday wanaga faraha ka qaadnay xariga idin ka jarnay idin dhameystirnay waxa la idinka baahan insha Allah idinkii wasaaradda waxbarashada iyo degmadii iyo inagala joogaan iyagana de mas'uuliyiinta fara badani aad la shaqeeysan hadii la haydhaado inaan waxa la oran jiray inaan toyniman hadlan habartiina wax ma siiso horta qoladeen reer Raari markii aad tiraadeen war wax nala qabta ay arintaas bilaabantay waxa kale aan doonayay inaan aad ugu mahad celiyo odayaasha deegaanka oo wada dhan oo waxa ay idin tuseen iyo anigaba ay tuseen anigoo xaggaana gaarsiinta tay wax la yaab leh way gudidii oo dhan iyo nimankii hawsha waday oo dhan ay halka ay nala joogto aad bay mahadsan yihiin qolada qurba jooga wixii ay halkan ku tareen yareed maxaan noqodana waan gaarsiin doonaa halkaana ku joojin maayana way wadi doonaan inaan waliba tan lafteedana wixii ay ka qaban karaan baahida waa badantay waan isku day doonaa aad bay aniga sharaf igu tahay imaka in halkan igu soo shariftaan odayaashiini dawladdiini dhalinyaradiini haweenkii idinkoo wada dhan halkan waxa aynu isugu nimi gurigan malcaamadda ee waxbarashada caruurta diiniga xariga jarkiisa maanta iyadoo xariga laga goyn doono waxa aan leeyahay horta ciidii gurigan dhismihiisa ka qayb gashay meel kastaba ha joogtee ilaahay jisaageeda ha siiyo ururka marso ayaa horta hormuuda gurigan dhismihiisa waxaan waasi way muuqataa cid walba way u muuqataa waxbarashada caruurta haddii aan u galo tacabka dee annagu haddii aanu khasaarayno annaga dee nasiib darro annagay nagu taha tacab jeeb ka soo baxay rag weeye haddaanu khasaarayno annagu carruurta wax ku beri weyno waanu is wada maqlaynaa nasiib darro raari haysata bay noqonaysaa marka wax bara waaya badin maayo hadalka oo hadal horaa loo dhameeyey waxaan ka sii idhaahdana waa mahadnaqun iyada horta mid weeye nin waliba ha ogaado adduunyada ayadoo iska dhisan buu dhulka ka tegaya ilaahay aniga intaa uu garansiiyey tolkay iyo nin walba iyo malcaamad iyo aqliga ah ilaahay igu alhaameeyey dee haddii ay iska khasaaraysaan waa nasiibkiin waa reer Raari haddii agudataanna waa nasiibkiin aniguna waxaan idinka codsanayaa dadka halkaa ay isugu yimbal inuu ilaahay dee masaajid haddii waa maqaam malcaamad haddii laga sameeyana waa maqaam inuu aakhiro bal kuwa ay daba jiido
آمين ولا ليالي ده وايهي وها كلو ترى وحنو لبا إيه طبعا قولكم ما هدنا قيناها أنك وحبا ما نقبسن كرنين جنودنا بيلان يو هراد يو وحييابا ولي ويسك حلق الدنيا هلقنو حوليانان يو ويهول بانتمر ما نقبسن كرنين ملعامدنا ما نان سميسن كرنين لبا قد بان دود لهينو لبا دي قد وانا قاودنا وايهي إلهي كو دمال إنوغا كينا نو كينا إلهي وحانو برنا ماشي كينين أيها بينو إلهي دم بقول في آخر بدافع كان أمين ده عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahad celinayaa horta dadkii qurba joogtaha soo dhisay malcaamadan meelo badan ka soo dhisay oo aan halkan ahayn aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa jazaakallahu khayr baan leeyahay miisaanka xasanaadka ilaahay inii saaro waxaan u sheegay qurba joogta inaanay intan oo kaliya ku joojinin ee dadka deegaankan iska lihi ay dhibaato fara badan ay haysato oo xagga waxbarashada iyo xagga biyaha oo aan leeyahay waxa la sii kordhiyo waxtarka dadka aad baan ma garanaysaa ugu duceynayaa dadka magaaladan degan in ilaahay uu garansiiyo in dadkan caruurta wax ku baraan oo caruurta halka wax ku barataa kuwa iyaguna macallimiin ka noqda oo anfaca dadka ay ka soo baxaan insha Allah bidnillaahi kariim waxa aad iyo aad ii farxada tuuladii raari oo aan anigu sir fara badan ka hayaan dadku ka hayn oo maanta ilaahay igu sameeyay malcaamadoodii taaganahay waxaan aad iyo aad ilaahay uga baryayaa iskuulkii iyo masaajidka kow iskuulkuna ku xigo in ilaahay cimriga igu simo midna waan kula dardaarmayaa qolada reer raari waxaan kula dardaarmayaa ummad waliba waxay qabsato ayuunbay heshaa nin waliba wixii ilaahay uu ka baryo ayuunbuu helaa gurxan fara badan baan ogay reer raariyo xamash badan baan ogay reer raariyo tashada guddidiina aamina ninkii qaldan waa loo sheegaa qaladka waxa la yiraahdaa waxa saad ku xuntay deedna wixii way bogsanayaan nabar hadduu bukoodo saw lama dhayo oo birrix ma noqdo qofkii qaldan qaladka u sheega laakiin waxaan idinka codsanayaa halka maanta aad joogtaan inaydan dib isugu celin mid waa dardaaranka reer raari dardaaranka waxa la idinku adkeynaya la idinku dardaarmaya meeshan tacab baa galay tacabka uu heerku sheegay idinku khasaare nin walba caruurtaada labada shiftiba waa inaad isku xisaabtantaa gelinka hore waa inay qaar dhigtaan gelinka dambena markay xoolaha kuwaasi raacaan waa kuwa ku kala yimaadaan haddii sidaa yeeli weydaan dee caruurta wadin ku dulmanta caruurtana loo kala yaxan maayo oo cadaalad baa caruurta looga baahan yahay haddaad laba ku ilowda ama midhuun keento inta kalena aad u dirto dhibteeday leedahay waa inaad galabtiina qaar u diyaarisaan oo wixii qorshaysataan iyo caruurtiina barnaamijkan waxbarashada iyo iskuuladan iyo camiraadda la idin ballan qaaday waxay ku xidhan tahay siday ay u camiranto malcaamadiinu malcaamadda marka camirantaan iskuulkuna wuu imanaya waa tii wasaaradda waxbarashada noo ballan qaado dhiyooga nala jooga marka hore annagu dee buluus baan waxaan ka hadalnaa nabadgelyaduna dee waa lagama maarmaan camalka ugu horeeya la qabta waa ugu wanaagsan waa nabadgelyada haddaan nabadgelyo jirin malcaamadi ma jirto oo masaajid ma jiro oo waxba ma jiraan markaad nabadgelyada ilaalisaan ee aad nabadgelyada ku dadaashaan wax waliba way iska imanayaan malcaamadda way camirmaysaa maxay ahayd dhalinyaradu way soo camirmayaan maxay ahayd aad baan ugu mahadnaqaynaa maxay ahayd qolada maxay ahayd marso waa soo dhaweynaynaa marso group waan soo dhaweynayaa aad baan u soo dhaweynayaa maantaynu xadhigga ka jaraynaa malcaamadii ay noo dhiseen ururka qurbajooga ee marso ay ka dhiseen tuulada magaranaysa ama deegaanka raari waxaynu leenahay ka faa'iidaysta haddii la yidhaahdo ilaahay baynu uga baryaynaa malcaamadii lagu intifaaco ay arday ka soo baxda halkaa waalidkoodna wax tara waddankana wax tara iyaguna faa'iidaysta وفيصل آدم إسماعيل تلفزيون كقرن كسومالي لان دقمة الشاب